kulanti wanaagsan saxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena waxaynu kusoo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa Bab al-Mandab oo xaalad halisa laga soo sheegayo iyadoo maraakiib maartii tira badan oo halkaa mari lahayd ay qaarkood meelihii ay kasoo baxeen ku laabteen, qaarna ay ka wareegsadeen. xiisada ka jirta halkaas ee u dhaxaysa Sacuudiga iyo Xuutiga oo cirka isku shareertay mar kale. haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekadan ugu dambaysa laga qoray waxaynu galaynaa telefishinka ruushka ee la yiraahdo RT ayaa wuxuu sheegay bayaan ay soo saareen kooxaha iyagu qaabilsan dhanka marista badaha ayaa waxay sheegeen inay khatar dhanka Xuutiyiinta ah oo ku saabsan badda cas ay soo korortay. haddaba bayaankan ayaa waxaa la soo saaray maanta oo Khamiisa, waxaana lagu sheegay in cadad ka tirsan maraakiibta shidaalka sida ay ka fogaadeen inay maraan marin biyoodka Bab al-Mandab. waxaana la sheegay in Xuutiyiintu ay ku dhawaaqeen inay bartilmaameedsadeen laba markab oo markaa Sacuudigu lahaa oo marayay badda cas saacadihii la soo dhaafay. haddaba wakaalada wararka ee Reuters ayaa soo qaadatay bayaanadaasi ay soo saareen hay-adaha iyagu badda marista qaabilsan, waxayna sheegeen 5 markab oo qaarkood ay ahaayeen kuwo waaweyn oo shidaal wada ay ka wareegteen inay maraan badda cas oo ay ka fogaadeen marinbiyoodka Bab al-Mandab. waxaana la sheegay 3 ka mid ah maraakiibtaasi xamuulka inay wadeen shidaal oo ay u socdeen wadamada Shiinaha iyo Hindiya, waxaana la sheegay inay hadda dib ugu laabteen meelihii ay ka soo kaceen iyagoo ka baqay Bab al-Mandab in xaalad adag ay markaa ku qabsato inta ay halkaa marayaan. marka sheekadaasu marka maraakiibtii kulli waa baqeen. waa idin sheegay shal waxaan yiri Sacuudi kaliya ma ku ekaanayso meeshu mar hadday fawda ka bilaabato markab kasta de shidaal wada waxa uu baqaya rasaas la isku ridayo iyo dagaal hadduu meesha ku qabsado waa gubanaya. marka maraakiibtii oo dhan waa la baqay. xiisadii marka Bab al-Mandab waxa ku sii socotaa sidii Hormuz oo kale. xaalku marka wuxuu marayaa meel markaasi khatar oo marayaa la leeyahay. marka afhayeenka Xuutiyiinta Yahya Sariir ayaa hadlay, wuxuu sheegay inay weerareen 2 markab oo ay leeyihiin Saudi Arabia oo ay weerar ku qaadeen. wuxuuna wacad ku maray meesha inaanay mari doonin markab Sacuudiga u socda ama ka yimid Bab al-Mandab. halkaa waa idinka xiratooliyay. marka xiisadu way kacsantahay. arrintan marka waxaa ka hadlay ninka la yiraahdo Donald Trump. haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay, Trump wuxuu mas'uuliyadda weerarkan la ka dhacay Bahar al-Ahmar ama badda cas weerarka ka dhacay wuxuu dusha u saariyay Iiraan. wuxuu yiri Iiraan ayaa ka mas'uul ah weerarada Xuutiyiinta ay ka geysanayaan badda cas. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo qoraal ku soo qoray bogiisa internetka ee la yiraahdo Truth Social ayaa sheegay madaxweynuhu inuu arrinkan mas'uuliyadeeda dusha u saarayo Iiraan oo uu leeyahay Xuutiyiinta adika ayaa ka mas'uul ah. waxaana uu sheegay in markaa Xuutiyiintu ay la kulmi doonaan ciqaabta arrintaas ayuu leeyahay. mawjada marka 2 aaga furantay waxay ka furantay Bab al-Mandab, waxayna awal ka furnayd Hormuz. Iiraan ay u xirantahay Bab al-Mandabna hadda sheekadii socoto inuu Xuuti xirto. khalaas waa marka meel kale furnaanaysa male. Sacuudigu hadduu u soo socdo Soomaaliya waa inuu ka baxaa dhankaas iyo Masar iyo kanaal Suez soo maro halkaas. sheekada waa dheeraanaysa. marka go'doomin kale oo caadi ah ayaa halkaa marka ka jirta la leeyahay. sheekadaas iyaduna ma fiicna la leeyahay, dhagaha uma fiicna wararkaas. arrimaha Iiraan iyo Mareykanka markaan u gudubno, ninka ugu sareeya hay-adda Mossad ee sirdoonka Israa'iil ayaa la sheegay maalmihii la soo dhaafay socdaal inuu ku joogay Mareykanka, isagoo madaxda CIA-da iyo rag kale oo mas'uuliyiin kulamo la qaadanayay.
ujeedada marka maxay tahay socdaalkiisa waa la soo helay waxa leeyahay xogay geysay Israa'iil Mareykan u geysay oo ah Jabal Fas meesha la leeyahay oo Iran ku taala oo maalin hore ninka Trump uu lahaa waa weeraraya meeshaas nuclear hoos ka buuxa xog ku saabsan Jabal Fas geysay illa weeraray rabta macnaha waxa leedahay meeshaas wax badan ku haysaa nuclear badan ka buuxa Iran marka waa inta laaba laga qaadaa hadaba markaan idin tuso warkii ugu dambeeyay sheekada laga soo saaray madaxa hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad ayaa booqday Washington isaga oo markaa u gudbinaya madaxda dalkaasi macluumaad ku saabsan meesha la yiraahdo Jabal Fas ee Iran ku taala hadaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay mudiirka ama agaasimaha hay'adda sirdoonka Israa'iil ee cusub ee Mossad ninka la yiraahdo Roman Goffman ayaa la sheegay inuu la kulmay isbuuciyo ka hor mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Donald Trump isagoo booqasho ku jooga Washington wuxuuna halkaa geeyay macluumaad sirdoon oo ku saabsan Iran hadaba shabakada telefishinka la yiraahdo CNN ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay ninkan sirdoonka madaxdu ay yiraahdo Goffman in uu markaa gudbiyay macluumaad sirdoon oo ku saabsan uraniumka iyo dhaqaalaha Iran waxaana la sheegay inuu sidoo kale gudbiyay mashruuca Jabal Fas iyo Iran halka waxay ku hayso oo ah xarun dhulka hoostiisa ah oo barnaamijka Iran ee nuclearka uu ku qarsoon yahay marka wuxuu leeyahay meeshaas macluumaadka aynu ka hayno ayaanu Mareykanka loo soo gudbiyaa leeyahay meeshaas nuclear ku jira meelaha badda geeskeeda habeen walba habeenkii 12 habeenkii 11 leedahay baade adeero meeshaas tagay leedahay Israa'iil way soo wadaa Trump inay Jabal Fas geysay rabtaa marka xaalku halkaas uu maraya marka wararkaas iyaguna kuwii ugu waaweynaa ee soo kordhay ayay ahaayeen haddaba marka warbixintan marka waxaynu kaga hadlaynaa sheeko ku saabsan heshiiskii saacadii la soo dhaafay qabsaday warbaahinta ee nuclearka nabadgelyada ee loo ogolaaday Sacuudiga Mareykanka uu ogolaaday Israa'iil ee ka qalinkii Trump markaas tartiib uga baxaya heshiiskii waa la ogolaaday wax ka jira malaha marka waxyaabo aan macquul ahayn oo Sacuudi uusan ogolaanayn ayuu xujo uga dhigay hadaba markaan idin tuso telefishinka RT ee Ruushka ayaa wuxuu leeyahay heshiiska nuclearka ee lala galay Saudi Arabia wuxuu sheegay Trump inaanu ansixi doonin ilaa ay ku biirto Sacuudiga heshiiska la yiraahdo Abraham madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uusan ansixin doonin heshiiska nuclearka ee lala galay Saudi Arabia ilaa ay ku biirto heshiiska Abraham ee ku saabsan caadiyeynta xiriirka ay la yeelanayaan Israa'iil marka waa xujo meesheeda taagan marka sheekadaasu halkaas marka iyaduna maraysa wararkaas ayaa ka soo kordhay marka al-umum dadka marka wax falanqeynaya waxay leeyihiin sheekadan wuxuu jeedadiisu tahay wax ka jira male waa heshiiskaas nuclear iyo Abraham iyo maxaa isku xaray wax isku xaray marka waa lagu Sacuudiga lagu adkeynay inuu sameeynayna marka la ogyahay marka qodobadaas ayaynu ku soo qaadanay barnaamijkeena labaad asxaabay inta aan marka la kulmayno la gareeyo shirkareey barnaamijka